بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. runtii waxaa iga yaabiyey oo aan igu kallifay in aan duubo videogan arrin dhacda ah oo bishan hadda dhamaanayso oo February ka dhacday dalka Canada magaalada Toronto, taas oo ah in ruux Soomaaliyeed lagu dilay magaaladaas kaas oo ahaa wax aadnan runtii malaysan karin yaab haddana yaabkii ruuxaas wuxuu ahaa markiisii hore qof nin ah oo wiilnimo u dhashay ama wiil ah 26 jir ayuu ahaa waana la dilay, laakiin mucjisadu waxay tahay wuxuu isu bedelay dumar. macnaheedu wuxuu ahaa khaniis markuu noqday ayuu go'aansaday in uu naag iska yeelo ama haweeney iska yeelo. jaraxaad wuxuu isku sameeyay qalitaan kadibna wuxuu noqday dumar caadi ah oo muuqaalka hayeeshe 22 bisha asagoo 26 jir ah markii la dilay ayuu muran iyo dood badan dhaliyay dawladda xageeda. arrimo badan oo buuq ah community uu ku abtirsado uu yeeshay oo ah dadka qaniisiinta ama dadka loo yaqaan GBLT. asagana waxa loo yaqaanay nooca uu noqday transgender, macnaha qof isbedelay oo rag ahaa oo dumar isu bedelay. arrinta iyada ah waxa kale oo buuq oo la yaab leh dhalisay masaajid baa la geeyay oo looga tukaday. marka waxa su'aashu ay tahay ama la yaabku Soomaalida dhexdeeda uu yahay, horta ma dhici kartaa wixii waa dhaceen, laakiin haddii masaajidka la geeyay dhaqay see loo dhaqay? ma dumar baa dhaqay mise rag baa dhaqay? tan kale see loogu tukaday? Allahumma arhamhu ma yiri mise waxa la yiri Allahumma arhamha? see loogu tukaday oo loogu duceeyay? qaabkii iyo waxyaabahaas oo dhan oo yaab kale waa waxyaabaha caalamka hadda jiro oo yaab kale. barakallahu fiikum. waxa weeye commentiyada waa xaqiina, laakiin hadal magaca rabtaan waxa weeyaan Sumaya Dalmar ayuu la baxay, magaciisa horena Maxamed buu ahaa. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.